maalin wanaagsan waxaana maanta idiin soo gudbi doonaa xulka qaranka dalkeena Soomaaliya oo maalmaha soo aadan ka ama bixi doona caasimadda magaalada Muqdisho waxaana maanta shalay ahayd la sameeyay iskuulaadka tartanka bariga bartamaha Afrika xulkeenana wuxuu galay Guruup aad u adag iskuulaadka tartanka Cecafa Challenge Cup ayaa la sameeyay guud ahaan tartankani waxa uu socon doona ilaa 13 maalmood xilli tartankan oo si toos ah u furmi doonto 7 bisha December ama bisha soo aadan waxaana ciyaarahan ay ka dhici doonaan dalka Uganda ayaana tartankan martisoori doonta tartanka lagu magacaabo Cecafa Challenge Cup xulka qarankeena Soomaaliya ayaana ku jira Group B waxaana groupkaasi ku weeliya xulka kala ah South Sudan iyo xulka DR Congo ayaana ku hogaamiyo waana xulka ama groupka ugu adag ee group tartankani wadanka South Sudan ayaana kulanka koowaad la yeelan doona xulka qarankeena Soomaaliya kulanka koowaad South Sudan ayuu la ciyaari doona South Sudan marka la eego kubadda cagta aad ayaan ugu awood sareynaa laakiinse kulamadii ugu dambeeyana labadaan xul aad ay isula xisaabtamayeen xulka qaranka Soomaaliya hadaba groupka ama iskuulaadka sidii loo sameeyay Group A waxa ku jira wadamada kala Uganda, Burundi, Ethiopia, Eritrea. Group B DR Congo, Sudan, South Sudan iyo Soomaaliya Group B ay ku jirto. Group C na waa Kenya, Tanzania, Djibouti iyo Zanzibar oo kulamo kale oo aad u xiiso badan. Soomaaliya kulanka koowaad South Sudan ayay la ciyaar DR Congo iyo Sudanna way is arki doonaan hadaba xulka Soomaaliya qaar kamid ciyaartoyda ilaa 4 ciyaaryahan wararka qaarna waxay 3 ciyaaryahan in laga wadi doono dalkeena Soomaaliya horyaalka Soomaaliya bariga kooxaha xidiga ciyaar ayaa qaarkood la wadi doono ilaa 3 ilaa 4 ciyaaryahan halka ciyaartoyda badi laga keeni doono qurbaha maadaama bandhiga cajiibka ay sameeyeen tartanka isreebka koobka adduunyada Zanzibarna ay wacdar ku soo dhigeen kubad wanaagsan ay soo bandhigeen taas ay xiriir kubadda cagta go'aansadeen in ciyaartoyda dibadda qaarkood laga keeno si xulka qaranka Soomaaliya oo horumar balaaran u gaaro tartamada ka qayb galayo xiriirka ayaana muddooyinka ugu dambeeyayba xulka Soomaaliya u waday si ay u horumari lahaayeen marka la eego bariga bartamaha Afrika tartamada ay ka qayb galayaan xulka Ocean Stars Cabdiqani Saciid Carab ayaana gudoomiyaha koowaad xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed wuxuu markaan u heelayaa xulkeena in uu horumariyo si lamidana oo meel wanaagsan ka tiigsado tartamada ka qayb galayo hadaba aragtida hoos inoo reeb xulkeena maxaad u rajeynaysaa